daawadayaal halkaan nagala socotaan waa Nawaaxi TV dhammaan shaqaalaha Nawaaxi TV iyo aniga oo ah daadiyaha barnaamijka Cabdiyare waxaan idinku soo dhaweynayaa barnaamijka waxbarashada maanta halkaan waxaan martiina waa Axmed Yaasiin oo ah arday wax ka barta magaalada Minneapolis. Axmed ku soo dhawow programka. aad baa u mahadsantiin Mr. Cabdiyare iyo baahda Nawaaxi TV waan idin salaamayaa waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa barnaamijkan wanaagsan ee aad igu soo martiqaadeen waxaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin. maanta barnaamijkanagu wuxuu ku saabsan yahay waxbarashada ama aqoonta waxbarashada oo ah furaha nolosha iyo shay muhiim ah qof walba oo muhiim ah nolol waxbarasho la'aan ah waa nolol mugdi ah sida ku salaysan maama carabi ah oo leh al-ilmu nuurun wal jahlu dhulaamun. haddii aan u gudbo programkanaga su-aasheedu koowaad waxay tahay Axmed ahmiyad intee leeg bay aqoontu u leedahay qofka bini'aadamka ah? aad baa u mahadsan tahay Mr. Cabdiyare aqoontu waa muhiim aqoontu waa power aqoontu waa horumar aqoontu sidaan ognahay waa waxa qofka dadka bini'aadamka ah qaarna kor u qaada qaarna hoos u dhigta aqoontu sida aayad Ilaahay Qur'aan uu ku yiri waxa weeye hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun oo ku jirta suurad Zumar aqoontu waa qofka waa qof wax bartay iyo qof aan wax baran waxay kala yihiin mugdi iyo nuur sida kala yihiin saas darteed aqoontu waxaan isdhihi karaa waa waxa kaliya oo qofka bini'aadamka ah dadka bini'aadamka ah qaarkoodna hoos u dhigi karta qaarkoodna kor u qaadi karta qofkii aqoon leh wuxuu la mid yahay qof samada ama cirka ku sugan oo kale qofkan aqoon lahayn wuxuu la mid yahay qof salka ama dhulka hoostiisa yaala. gabay carabiya ayaa wuxuu lahaa fafus bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abadan الناس موتى وأهل العلم أحياء gabaygaas oo macnihiisu yahay ku guuleyso cilmi aad weliga ku noolaatid dadku waa wada dhinteen waxa nool kaliya dadka cilmiga leh taas oo macnaheedu yahay qofku hadduu cilmi leeyahay ama aqoon leeyahay hadduu dhinto xataa waa qof la xusaayo ama aqoontiisa la xusaayo magaciisa hadii jeer umada dhex yaala meesha qofka aan waxa baran oo yahay qof markuu dhinto magaciisii iyo wuxuu ka dambeeyay ee meeshaas ku dhamaadeen saas darteed aqoontu waa shay muhiim ah aqoontu waa waxa kaliya oo dadka bini'aadamka aqoontu qofka bini'aadamka ah waa ilaalisaa meesha maalka qofku uu ilaaliyo maalka qofku isaga ilaaliya aqoontuna qofka isaga ilaalisa waana mahadsantahay mahadsanid Axmed sida u muuqato dhalinyaro Soomaaliyeed oo fara badan ayaa xoog waxay saareen waxbarashada iskuulada haddii aad aragto waa Soomaalidu way ka buuxdaa sidee buu ku leeyahay mustaqbalka waxbarashada ee dhalinyarada Soomaaliyeed? aad iyo aad baa u mahadsantahay Mr. Cabdiyare waa su'aal muhiim ah anigu shakhsiyan waxaan arkaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay leeyihiin mustaqbal aad iyo aad u wanaagsan dhalinyarada Soomaaliyeed dhibtii wadankooda ku dhacday kadib meel kasta ay adduunka u joogaan meel kasta ay u qaxaan waxaana muuqata meel kasta ay joogaan dad wax ka baranaya firfircoon leh aqoon u leh in aqoon wax baranaya kordhisanaya luqad ha ahaato cilmi kale ha ahaato bal iska badaa cilmigoodii diinta kor u qaadaya oo ummadii kale iyo bulshadii kale ugu yeeraya marka waxaan arkaa mustaqbal aad u fiican leeyihiin waxaan arkaa inay jibiyeen rulal badan oo dadka qaarkood ay ku dhaqmaan ama ay aaminsan yihiin oo ah qofka bini'aadamka ah hadduu awowgii oo lahaan jiray awowgii hadduu ka soo baxo dugsi hoose inuu wiilkiisu ka soo baxo aabihii ka soo baxo dugsi dhexe asagu ka soo baxo dugsi sare wiilkiisu markaas jaamacad dhameeyo oo ah yani qofka bini'aadamka ah waxa habeeya oo jiheeya oo tusa nolosha ama qaabka waxbarashada waalidkiis dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoo aan haysan wax jiheeya oo habeeya oo ku haga wadada waxbarashada ee nidaamsan inay ka talaabsadeen inay caqabad badan ka talaabsadeen inay heer waxbarasho oo jaamacadeed gaareen bal inay dhaafeenba taasoo marka waxay ku tusinaysaa in ay dad yani aqoon iyo waxbarasho iyo xirfad ku dadaalayaan inay yihiin dad karti leh inay yihiin taasoo misna ku tusinaysa in ay dadkooda iyo ubadkooda soo socda mustaqbaliyeen dad jihayn kara oo habeyn kara oo wada tusi kara inay yihiin saasaan dhihi karaa aan dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogaan mustaqbal aad iyo aad mushrif ah oo nuuraya ay leeyihiin waana mahadsantahay
ama sanad sida muuqata waxaa jirto caqabadooyin fara badan oo wajahda dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha joogta sida family problems iyo taakulayntii familkooda iyo luqadaha sidee baa loo gudbi karaa caqabadaha noocaas heer loo gaari karaa waxbarashada aad iyo aad sidoo kale Mr. Cabdiyare su'aashan waa su'aal isweydiin mudan hadii jeerna dadku isweydiiyaan caqabad badan way jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed iyagoo yimaaday wadamo cusub ku dhaqdhaqan ahaan ku cusub luqad ahaan ku cusub system ahaan ku cusub dhinac kasta ku cusub bisna ay sugayso taakulayn iyo inay gacan qabtaan dadkoodii ehelkoodii ay ka yimaadeen ay sugayso waa caqabad weyn boqolkiiba boqol laakiin waxay uga talaabsan karaan saan aamsanahay caqabadaas ay ku dhaafi karaan si fudud iyagoo number 1 nidaamsada waqtigooda haday waqtigooda nidaamsadaan ayna waqtigooda ay kala habeystaan xilli waxbarasho iyo xilli dadkooda ay shaqaysanayaan iyo xilli naftooda ay wax tarayaan iyo xilli ay ummadooda u faa'iideynayaan haday sameeyaan waxaan aamsanahay caqabadaha wax talaabsan karaan sidoo kale waayo waqtigu waxa la yiraahdaa alwaqtu aqla min adahab waqtigu uu ka qaalisan yahay wax kasta oo qiimo leh ama qiimo badan ama qiimo leh sidoo kale better late than never oo ah in aad wax ka dib dhacdid waxa ka fiican inaadan waxba qaban soo waxaan aaminsanahay caqabadaha waxay wada talaabsan karaan inay isku dayaan inay waqtigooda nidaamsadaan iska jawar sameystaan waxooda ku dhaqmaan oo tartiib si ay uga talaabsadaan caqabadaha ee dadkoodana hadhoodii wax ku qabsadaan dadkoodana wax ku taraan waana aad baa u mahadsantahay mahadsanid Axmed ugu dambeyntii maxaa ku dhiirigelin lahayd ama u sheegi lahayd dhalinyarta Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa wadada hadda haysaan haya kii aan hayna waxaan kula talin lahaa in ay waqtigooda ka faa'iideystaan inay saddex waxyaabo sameystaan goal plus plan equal success goal iyo qorshe iyo hadaf markaas inay guul gaari karaan iyo waqti saddexda hadday isku daraan inay guul gaari karaan waxaan kaloo kula talin lahaa qofka bani aadanka ah laba siyaabood buu nool yahay muuqaal ahaan nolol muuqaal ahaan iyo nolol ah inuu qofku gudaha ka nool yahay oo qofka bani aadanka meesha ka nool yahay waa qalbiga taasaana muhiimadeeda boqolkiiba boqol muhiimad leh taasna qofka bani aadanka wuxuu ku dhisi karaa inuu barto diintiisii aqoontiisii xagga diinta inuu dhiso oo ah qofka bani aadanka hadii jeer ka dhigaysa qof nool oo si real ah u nool inaad nooshahay oo muuqaalahan ka nooshahay oo lacag haysto waxa ka muhiimsan inaad gudaha ka nooshahay oo cilmigaagii diintaadii dhaqankaagii waxaad ka taqaanid oo aad haysatid tan kalena tan adduunyadana aad dadka wax kula qaybsatid waa muhiim marka waxaan leeyahay wax barta cilmigu waa waajib qof kasta oo bani aadana ama qof kasta oo noola ah saaran cilmigu waa waxa kaliya dadka qofka bani aadanka ah uu kaga duwan yahay nolosha kale ee adduunka ku nool waa waxa kaliya oo Ilaahay maskaxda nagu siiyay oo nagu adoonsaday oo maskaxdana inaan isticmaalno oo aynu wax ku qabsano wax ku barano nolosheena ku habeysano marka inaan cilmiga dunyawayga ay cilmiga diiniga oo kaas oo kama hadii jirna anfacaya dunya aakhirana anfacaya wixii xun na tusaya wixii xun naga leexinaya wixii fiican na tusaya inaan qaadano intaas ku baraarujin lahaa aad baan ugu mahadsantihiin waan salaamaya assalaamu calaykum mahadsanid Axmed maanta halkaas ayuu barnaamijkan ku egyahay anigoo daadiyaha barnaamijka Cabdiyare sida ay nabadgelyo